waxaa jira dad Soomaali ah oo diinta ka baxay oo masiixiyaal ah oo ma aragtay isku dayayo inay dadka daruufta haysato dhibaataysan u ursiyaan diinta ka dhaadhiciyaan inay tahay diinta islaamka tahay mid murugaysan iyo mid xanuun iyo mid oo faqri inay tahay anigu markaan dhibaatada i haysay waxaa ila soo xiriiray Soomaali masiixi dad ah oo maaragtay qoraal dheer ii soo qoray aad wada taqaaniinba adinka aad taqaaniin oo Soomaali masiix ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا إدي سلامة يا رمان انتو كحرين يوتيوب جرنال كيغا فرحي الصومال أوفيشيال دل إدي بدباشا جوكتان إله ديو أمان سدو حتى مالين إدي تهمالين تهدي وعناتو هبين هدي إدي تهبين كهدي وعناتو وحكست إدي تهدي وعناتو ما أنت موضوع عن كهاد للربو ما أهن موضوع إديله موضوع كسابسن دينتنا quruxda badan ilaahayna siiyay oo wiyaasheen anaga nalagu dhalay aan ku soo dhalnay aan ku soo kornay oo diinteena diintii ugu fadli iyo khayrka badneed oo adduunka ahayd diinteena islaamka arrin ku saabsan baan rabaa inaan ka hadlo. Please share garay videogan ha gaaro meel kasta oo Soomaali Maxamed ay joogaan. Please haddii islaamnimadaada ay maaragtay isheeg lagu jirin oo aad tahay qof qadiyad islaamnimo leh qadiyad islaamnimaan ka hadlooyaa waxaan aniga igu dhacay waa waxaan ka hadli rabo marka please like na taabo share na dheh group-yadana ku share garay. waxaan jeclaan lahaa xitaa dadka youtuberada dhammaan inay soo wada qaataan ka wada hadlaan wada faafiyaan waa wax badan aan fariin u diraaya Soomaali Maxamed waayo. Please share garay sidaad ogtihiin aniga alxamdulillah shukri waxaan soo maray xaalad aad u adag oo muddo hal sano aan ku jiray xaaladaas oo alxamdulillah anaga aan dad muslim haddaan nahay oo aan niyadeena ee ku jirto inaan anaga nahnay dad muslim oo diinteena islaamkana ee na fartay maalinta qofka mu'minka bis in la imtixaamayo oo ma aragtay ilaahay quraankiisa ku soo dejiyay inna ma'al usrin yusran يعني علاس بدن قداشيس فضيضة هذه إسلام كان قفك ونوجه هري وما عرفت النبي جينا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله حبيب ملايين على صو امتحاني امتحان صومري السيجو نوش الدنك يقرح ذا نور كان كدل بضي إنه رفعت كاس ودتكيس ومديس وحي inta la marsiinayo la marsiyo oo dhidhimiyo asigoo meel kasta daaraha meel kasta buuraha dheeman looga dhigi karo wax kasta oo loo sameyn karo buu ka darbiday inuu ku jiiftaa darin sadaq oo korkiisa kasoo bixinaysa ii sheeg firaash qurux badan xitaa diiday maadaama anaga aan ahnay dad muslim ah anaga muslimiinta waxaa nala siiyey aakhiradeena adduunka waxba ma ahan adduunka dhalaalkiisa waa wax maalmo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kastoo muslimnimadiisa ku adkaysto diintiisa ku adkaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday daaraha daar ka mid ah jannada. adduunkan waa laga tagayaa marka annaga waxaa inoogu horeeyay khayru khalqillah xabiib malaayiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam annagana waxaa aaminsanahay aan haysanaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam allahumma salli wa sallim ala annaga marka waxaa la rabaa inaad dadka nagu soo batay oo diinteena quruxda badan ka doortay lacag iyo qaadicaad la yar la siinayo ka doortay oo iimaankooda aad laciifka u yahay waxaan rabaa inaad iska ilaalisaan inaad ka digtoonaataan marka hadalka haddaan idii sii wado aniga markaan dhibaataysnaay baa qoraal dheer lee soo diray waxaana ii soo direen nin iyo naag isqabaan oo Soomaali masiixi ah oo maalin kasta wacyigeli dadka inay duufsadaan isku dayaayo inay lacag ku duufsadaan waxaa lee soo qoray qoraal dheer ahne diintan aad haysatid waa diin daruuf iyo dhibaato diintaas ka soo bax annaga kusoo bir diintan ciise diinta maxay sheegeen acuudu billahi kitaabkii shaydaanka ahaa qudus ay dhahayaan oo masiixi
kusoo biir saa markaas waxaad helaysaa xasilooni, waxaad helaysaa nolol qurux badan, waxaad helaysaa isheeg nolol oo qurux badan, aad u qurux badan. oohin ma arkaysid, murugo ma arkaysid, dhib ma arkaysid. waxaan kugu wacaynaa inaad kusoo biirtid diintan masiixiga ah. acuudu billahi min ashaydaani rajiim. ilaahu naga qabo shayaadiina insiga, ilaahu naga qabo dadka diintooda quruxda badan ku gatay lacag darteeda iyo dollar dartiis ugu tagay. aniga ma yeelin, xasha lillah, waayo aniga waxaan ahay gabar muslimad ah oo diinta islaamka lagu dhalay. dhegta looga aadaamay markay dhalatay la tusay in ay tahay baby saqiir dhashay oo islaam ah, kuna soo koray, kuna soo barbaaray diinta islaamka, haddana ku dhalay diinta islaamka ilmahayga, ku barbaariyey alxamdulilah. tayda weyn qur-aanka ii dhamaystay ee haddana ku naqtiiminaysaa, cilmina ii raacanaysaa alxamdulilah. ilmahayga kalena sidaas ay diinta iigu baranooyaan alxamdulilah. marka ilaahay mahadiisa waa taas, ilaahay baan ku shukrinayaa, ilaahay mahadiisa waaye alxamdulilah. ilaahay iga dhigay gabar muslimad ah, ehelkaygii iyo qaraabadeydii iyo dhammaan meeshaan kasoo aslaamay ay tahay islaam. alxamdulilah, ilaah baan ku mahadinayaa. haddaan aan ahnay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, alxamdulilah, ilaahay mahadiisa waaye. waxaan rabaa marka labada shaydaan waxay igu waceen in aan aniga isheeg oohintan iyo dhibkan aan ku jiro ay igu fiirsanayaan islaamka, waxna ii qabanaynin, islaamkana ay yihiin dad yacni aan isku naxariisanin. saas darteeda waxaan kugu wacaynaa diintan inaad soo raacdid. acuudu billahi min ashaydaani rajiim. ilaah baan ka magangalay shaydaanka iyo inta la halmaasho iyo shayaadiini insiga dhammaan. xasbi allah wa nicma wakiil. ilaah baa idiga magangalay alxamdulilah. iimaankayga baa aniga ii toosnaay. iimaankayga wuxuu ii sheegay inaanan xaaraan xitaa ilmahayga aana dab ugu shidin. iimaankayga islaamnimadeedu ilaahay wuxuu i faray inaan xoolo xaaraan maahine aan isheeg xalaal maahine xaaraan ilmahayga aana siinin, oo xoolo xaaraan aan iska ilaaliyo. ilaahay wuxuu i faray oo aniga kitaabkaas oo igu faray aan raacay. alxamdulilah. maantana ilaahay mahadiisa waan guulaystay. ilaahay subxaana watacaala albaabyadiisa ayuu ii balaqay. ilaahay wuxuu ii soo diray addooman i garab istaago oo muslimnimo igu garab istaago, oo igu garab istaaga naxariis iyo inay qof muslim gabar walaashooda muslim aan ahay quruxdan ujeedaan. ilaahay ka suko ducadiina, dadka shacabkayga soomaaliyeed ducadooda hiil iyo inta ila soo garab istaagtay, ilaahay subxaana watacaala ajri xasanaad ha siiyo. marka waxaan leeyahay ha gaaraano ninkii iyo naagtii oo masiixiyaasha oo soomaalida ahay oo isku dayay inay diinteeda aniga iga leexiyaan, lacag darteeda iga leexiyaan. ha isku dayaan quruxda aan qabo maanta iyo halka aan fadhiyo, anigoona diinteeda haysta ku adkaystay in aan alxamdulilah aan oohintiina ay qusul isku bedeshay, murugadina farxad isku bedeshay. marka qof kasta oo Soomaali ah waxaan idin leeyahay please share gareeya videogan, meel kasta gaarsiiyo. ha dhaliilsanino diinti islaamka ahayd oo adiga lagu dhalay. weligaa ha isku dayin, adiga aad ku dhalato ku soo kortay, ha isku dayin iimaankaas inaad ugu raacid diin ana waxay tahay la aqoonin, ee meel ka imaad la aqoonin, ee dad samaysteen. diintu ilaahay kuu soo dejiyey waa diinta islaamka. diinta islaamka waa diinta ugu fadli iyo khayrka badan adduunka. diimahan kale ee dadka ay wada samaysteen waa wax ayaga dadka ay samaysteen, waaye. marka waxaan idin leeyahay diintiina ilaalsado. please Soomaali maxamedey, weligaa daruufta tan ugu xun haddaa ku jirtid, walaalkay walaashay, diintiina quruxda badan ku dhegnaada xeriga ilaahay. mar kasta daruuf kasto aad soo martaan, dhib kasto aad la kulantid, xanuun kasto aad la kulantid, isku day in aad ku dhegnaatid diintaada oo quruxda badan leh. alxamdulilah waan ku faraxsanahay inaan ahay gabar muslimad ah. alxamdulilah waan ku faraxsanahay inaan ahay gabar muslimad. alxamdulilah waan ku faraxsanahay inaan ahay gabar muslimad. waana ku faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay diinteeda islaamka. waxaan ku faraxsanahay inaan gabar muslimad aan ahay, gabar Soomaaliyeed muslimad ah inaan ahay aan ku faraxsanahay. alxamdulilah oo Soomaalina ilaahay iga dhalay, oo muslimna aan ahay, Afrikaan ahay. alxamdulilah waa waxaan ku faano, waa waxaan ku faraxsanahay. marka please adiga i daawanaya haddii ay ku taabatay qasidan ay idiga sheekeynayo, ninkii naagta Soomaalida isqabo oo aniga isku dayay inay diinteeda i tusaan inay tahay diin
xanuun ah diin murugaysan diin isku dayeen qoraal dheer soo qoreen juhud soo geliyeen inay aniga igu leexjiyaan laakiin ay u noqomaysay alxamdulillah ilaahay ma hadiis waaye qof kastoo videogayga daawanaa share garee please youtube ha ahaado page ha ahaado meel kasta u share garee qof kasta aad tahay ogow maalin dhib hadduu ku qabto inaa culeys badan fudeed oo ka dambeeya ilaahayna kugu sheegay kitaabkiisa culeys badan kasta aad martidne kaaga dambaysa fudeed ku xisaabtan in aad tahay qof muslim ah ku xisaabtan in adduun korkiisa imtixaan oo jiro qofka mu'minka la imtixaamay ilaahay qofkoo jecel yahayna oo imtixaamo intaasaan idiga tagaya please share garee like na dheh meel kastana gaarsiiya insha allah tacaala diintaada mar kastaba ku adkayso diintaada mar kastaba ku adkayso diintaada ha ku gadanin wax yar oo qadaadici oo wasaq ah waa maal adduunyada waa wasaq way dhamaanaysaa laakiin iimaankaaga iyo adiga diintaada wax dhamaanaya maaha waa ku dhimanaysa waan lagugu soo saaraya maalinta yawmil aakhir insha allah tacaala wax kasta adduunka aad ku kasbatid ayaa aan qirina kaaga horeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu